masaajidyadu waa meesha ay isugu yimaadaan muslimiinta si ay ugu cibaadaystaan, waxaana lagu qiyaasaa masaajidyada dunida ku yaala 3.6 milyan oo masjid. sidoo kale waxaa lagu qiyaasaa muslimiinta dunida ku nool 1.8 bilyan oo qof. haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 10 masaajid ee ugu weyn dunida iyadoo laga eegaya tirada dadka uu qaado. masjidka koowaad ee ugu weyn dunida waa masjidul haram, masjidka xaramka. waxaa kaloo loo yaqaanaa masjidka weyn ee Makka. waa masjidka ku wareegsan Kacbada kuna yaala magaalada barakeysan ee Makka, Sacuudi Carabiya. masjidkani waxaa sidoo kale loo yaqaanaa masjidka masaajidyada maadaama uu yahay meesha masaajidyada dunida ku yaala loo soo jiheeyo. waa goobta malaayiin muslimiin xujay ah ay u aadaan inay ku gutaan xajka oo ah rukni ka mid ah arkaanta islaamka oo ay waajib ku tahay qof walbo muslim ah inuu guto hal mar noloshiisa oo idil hadduu uu awoodo. waana meesha cumrada loo aado. Kacbada, dhagaxa madow, ceelka biyaha Zamzam, maqaamu Ibraahim iyo buuraha Safa iyo Marwa ayaa ah goobaha ugu muhiimsan ee ku dhex yaala masjidka weyn ee Makka. masjidka xaramka waa masjid waqti walba iska furan, wuxuuna qaadaa 1,500,000 oo qof halkii mar. masjidka labaad ee ugu weyn dunida waa masjidun nabawi, masjidka nabiga. waa masjidka uu aasaasay dhisayna nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam sanadkii koowaad ee hijriga markuu yimid magaalada Madiina asagoo saaran rati lagu magacaabo Qaswa. wuxuu ku yaalaa magaalada barakeysan ee Madiinatul Munawwara ee gobolka Xijaaz, Sacuudi Carabiya. waa mid ka mid ah masaajidyada uu dhisay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna ka mid yahay masaajidyada ugu waaweyn ee adduunka. waana goobta labaad ee barakeysan ee islaamka marka laga yimaado masjidka xaramka. waana masjid waqti walba iska furan, wuxuuna qaadaa 1 milyan oo qof halkii mar. masjidka saddexaad ee ugu weyn dunida waa xaramka Imaam Cali. waxaa kaloo loo yaqaanaa masjidka Cali. wuxuu ku yaalaa Najaf ee wadanka Ciraaq. waa masjid shiici ah waxaana ku yaala qabriga Cali ibn Abi Talib oo ahaa in adeerkii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. waana khaliifkii afraad ee khulafaa ur-raashidiinta. anagoo tixraacayna waxay shiicadu ay aaminsan yihiin. waxay leeyihiin Cali dhinaciisa waxaa ku duugan haraadigii Nabi Aadam iyo Nabi Nuux. waxaa booqda masjidkani malaayiin xujay shiici ah sanad walba. masjidkani ayaa qaada 800,000 oo qof halkii mar. masjidka afraad ee ugu weyn dunida waa xaramka Imaam Reza. wuxuu ku yaalaa magaalada Mashhad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee wadanka Iiraan. waa dhismaha uu ku yaalo hoyga Imaam Reza oo ahaa imaamkii 8aad ee shiicada. waana masjidka ugu weyn ee dunida baaxad ahaan. waxaa kaloo ku yaala dhismaha xaramka Imaam Reza masjidka Goharshaad, matxaf, library, qabuuro, jaamacadda Rozafi ee culumta islaamka iyo dhismooyin kale. dhismaha waa mid ka mid ah xarumaha dalxiiska ee wadanka Iiraan, waxaana la yiraahdaa waa markaska shiicada Iiraan. waxaana sanad walba booqda 12 milyan oo ah shiicada Iiraan iyo shiicada inteeda kale wuxuu qaadaa 500,000 oo qof halkii mar. masjidka shanaad ee ugu weyn dunida waa Bara Imam Bara. waxaa kaloo loo yaqaanaa masjidka Asfi. waa dhismo ku yaala Lucknow ee dalka Hindiya. waa dhismo weyn ee u dhow Imam Bara, waxaana la dhisay sanadka markuu ahaa 1784. dhismaha wuxuu ka kooban yahay masjid weyn oo loo yaqaano masjidka Asfi iyo Bawli oo ah ceel leh biyo qulqulaya. masjidkani wuxuu awood u leeyahay inuu qaado 350,000 oo qof halkii mar. masjidka lixaad ee ugu weyn dunida ayaa ah masjidul Istiqlaal, masjidka madax banaanida.
waa masjidka koowaad ee ugu weyn koonfur bari qaaradda Aasiya, wuxuuna ku yaalaa magaalada Jakarta ee caasimadda waddanka Indonesia oo ah waddanka muslimiinta ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Masjidkani ayaa waxaa la dhisay markii Indonesia ay ka xorowday gumeystihii Dutch-ka ama Hollandeeska ahaa. Saas darteed ayaa loogu bixiyay magaca istiqlaal oo ah eray Carabi ah oo macnihiisu yahay xorriyad. Masjidkani wuxuu qaadaa 200,000 oo qof halkii mar. Masjidka toddobaad ee ugu weyn dunida ayaa ah Taajul Masaajid, waa masjid ku yaala Hubal ee waddanka Hindiya. waa masjidka ugu weyn ee dalka Hindiya, wuxuuna ka mid yahay masaajidada ugu waaweyn ee qaaradda Aasiya, wuxuuna qaadaa 175,000 oo qof halkii mar. Masjidka sideedaad ee ugu weyn dunida ayaa ah Masjidka Jamkaran, wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu muhiimsan ee magaalada Qom ee waddanka Iran, wuxuuna qaadaa 150,000 oo qof halkii mar. Masjidka sagaalaad ayaa ah Masjidka Jaamacul Jazaa'ir, waxaa kaloo loo yaqaanaa masjidka weyn ee Algeria. waa masjid ku yaala waddanka Algeria, waxaana ku yaala manaaradda ugu dheer ee dunida. Dhismaha masjidkan wuxuu bilowday Agoosto 2012 kadib qandaraaskii dowladda Algeria oo ku kacay 1 bilyan oo euro ee ku guuleysatay shirkad laga leeyahay waddankaasi Shiinaha oo lagu magacaabo shirkadda injineeriyadda dhismaha ee dalka Shiinaha. Inkastoo dhismaha masjidkani uu ku yimid dib u dhacyo fara badan, ku dambeyn wuu hirgeliyay dhismaha masjidkani. Masjidkani wuxuu awood u leeyahay inuu qaado 120,000 oo qof halkii mar. Masjidka tobanaad ee ugu weyn dunida ayaa ah Masjidka Xasankii labaad ama Masjidu Xasan Thani, waa masjidka ugu weyn ee qaaradda Afrika, wuxuuna ku yaalaa magaalada Casablanca ee waddanka Morocco. Masjidkani wuxuu leeyahay manaaradda labaad ee ugu dheer ee dunida, dhererkeeduna wuxuu gaarayaa 210 mitir. Masjidkani wuxuu dhismihiisu dhamaystirmay 1993 waxaana ku kacay 400 ilaa 700 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah. Masjidkani wuxuu saaran yahay xeeb ka mid ah xeebaha waddankaasi, asigoo ku sii jeeda Muxiitul Atlasi ama badweynta Atlantikada. Masjidkani wuxuu awood u leeyahay inuu qaado 105,000 oo qof halkii mar. Sidoo kale waxaan jeclaystay inaan halkan idinkugu soo gudbiyo masaajidyadii ugu horeeyay ee laga dhisay waddankeennii Soomaaliya. haddaba halkaani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 3 masjid oo ka mid ahaa masaajidyadii ugu horeeyay ee laga dhisay waddankeennii Soomaaliya. Masjidka koowaad ayaa ah Masjid Al-Qiblatayn oo laga wado masjidka labada qibla. wuxuu ku yaalaa Zaylac, waxaana la dhisay qarnigii 7aad, waana masjidkii ugu horeeyay ee laga dhisay waddankeennii Soomaaliya. sidoo kale wuxuu ka mid yahay masaajidadii ugu horeeyay ee laga dhisay qaaradda Afrika. Masjidka labaad ayaa ah Masjidka Arbac Rukun. sidoo kale masjidkani wuxuu ka mid yahay masaajidadii ugu horeeyay ee laga dhisay dalkeennii Soomaaliya, waxaana la dhisay qarnigii 13aad, wuxuuna ku yaalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne. Masjidka saddexaad ayaa ah Masjidka Fakhruddin. sidoo kale masjidkani wuxuu ka mid yahay masaajidadii ugu horeeyay ee laga dhisay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne, waxaana dhisay Suldaan Fakhruddin oo ahaa suldaankii ugu horeeyay ee saldanadii Muqdisho. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.